Faarax Xuseen Sharmaarke oo ah suugaanyahan noolaa nuskii hore ee qarnigii 20aad ayaa laga wariyaa inuu yiri mar uu noo sharxayay sababtoo isaga dhaafay gabayga. Dalkayaga ninkii duunyalay door u bixiyaane wadaad diin leh iyo caaqil waa laga duleeyaye inaan darajadii laga aqoon baan isaga daayay. يعني gabayga iyo suugaanyahanimada in aan dadka aysan ugu darajayn oo aan darajadii laga aqoon awgeed ayaan isaga daayay. waxa muuqata xilliga uu abwaanku noolaa inay Soomaalida dadka ku darajayn jirtay ama ku qiimeyn jireen hadba hantida uu haysto. hayeeshee waxa isweydiin mudan waa maxay walwalkeena ku aadan nolosha xilli keenni maanta u faqiirsan oo jaanis u helay wax uusan nasiib u yeelan awowgiisii shanaad oo lahaa kungeela sida teknoolajiyada casriga ah isgaarsiinta iyo gaadiidka duula. sidoo kale waa maxay sababta ka dambaysa inay maalqabeennada sii aruuriyaan maalka iyo hantida xilli ay haystaan hanti ku filan iyaga iyo 5 jiil oo ka dambaysa. su'aalaha iyo kuwa kale oo la halmaala waxa si farshaxanimo leh inooga jawaabaya qoraaga buugga toddobaadkan qalaqu sacyi ila al-makana ama walwalka ka dhasha u sacyinta makaanada iyo ismuujinta ee Alan de Botton. Assalaamu calaykum. aniga waa Baalwa Sugay barnaamijkuna waa dhadhamis oo guuray magac cusub oo ah Miida Murtida. waxa la yiraahdaa nolosha insaanka waxa xukunta laba qiso jacayl kuwaas oo kala ah jacaylka fitriga ah ee la xiriira rabitaanka u dhaxeeya lab iyo dhadig iyo jacaylka qofka uu ku doonayo ixtiraamka iyo weyneynta dadka kale. walow jacaylka labaad uu yahay mid ay qarsadaan badi dadka haddana waa jacayl aanan ka saameyn yareen kan hore marka loo eego rabitaanka ay u qabaan aadanaha. caruurnimadaadii inaad heshid jacayl iyo ixtiraam bilaa shardi ah kaliya waxa ku filneed inaad nooshahay. hayeeshee markii aad qaangaarto ama aad weynaato waxa u baahan tahay inaad kasbatid sifo ay dadka kugu ixtiraamaan kuguna muujiyaan jacayl. macal asaf sifahaasi ma aha mid leh qaacido sugan oo qofkii gaaraaba oo mudan ixtiraamka dadka. hayeeshee waa mid ku xiran markasta bulshada aad la nooshahay iyo waxa ay ku bixiso ixtiraamka iyo weyneynta dadka. tusaale ahaan Soomaalida waxa ay soo martay marxalado kala duwan. qofku waxa jirta xilli lagu qiimeyn jiray laguna ammaani jiray marka uu yahay qof aftahana oo geesi ah. wiilwaal oo ku faanayay sifaadkaas waxa uu yiri gacan iyo ingeed laga dhihiyo gobani man sheegtay. sidoo kale waxa jirtay xilli qofka lagu qiimeeyo laguna weyneeyo hadba hantida uu haysto oo Soomaalidu waxa ay tiraahdaa nin hanti leh hadduu hanta taqana waa hubal. xitaa hadduu yahay doqon aan hadli aqoon oo cayi ah waa hubal hadalkiisu macaan yahay oo mudan in si maclo dhageysto. hayeeshee haddii u daran tahay oo ay muuqataa in dhalinyaradii Soomaaliyeed isku muujiso ama makaanada iyo darajada ku raadiso hadba nooca baasaboor ay haystaan. si walbay ahaatana Soomaalida marna kama suulin ixtiraamka gaarka ay u hayso culamaa diinka taasoo leh asal diini ah maadaama alla agtiisa u karaamo badan yahay keenni u taqwa badan. reer galbeedka oo ah bulshada uu buugga ku dhisan yahay ayaa taariikh ahaan nala soo martay inta aanu soo sheegnay. hayeeshee qudhooda waxa ay maanta marayaan xaalad muruga leh taasoo ah in qofkii aanan hanti haysan agtooda uu yahay halkumataal xitaa isagoo jeebkiisa nisbiyan u buuxo. yeelkeedsi xasadka oo la tilmaamo inuu yahay mid ka mid ah waxyaabaha keena walwalka iyo stresska ayaa ka dhasha isku dhawaanshaha. sidoo kale waxyaabaha walwalka abuura waxa ka mid ah kala sareynta bulsho markeedii hore sineed. tusaale ahaan qofka aadka u gaaban asii ku dhaxnool bulsho gaaban walwal kuma haysa haddii uu maqlo bulsho kale oo dhaadheer. hayeeshee haddii mid ka mid ah saaxiibadii ama dadka ku hareereysan oo hal sinti dheeraado waxa suurtagal ah inay dareensiiso cuqdad xasadna ku abuurto taasoo keensanaysa inuu naftiisa liido kuna beero naftiisa walwal iyo stress. sidoo kale waxa arkaysaa qof haysta hanti badan oo hodan ah haddana har iyo habeen u soo taagan sidoo ku aruurin lahaa maal badan kaasoo uusan u baahnayn waaqiciyan balse uu u baahan yahay inuu tirada maalka isku muujiyo si uu indhaha dadka uga helo ixtiraam dheeraad ah. tusaale ahaan mar laga joogo taqriiban 10 sano ayaa subax anigoo dhageysanaya BBC-da waxa ay soo qaateen wareysi laga qaaday Carlos Slim oo xilliga haystay laqabka ah ninka labaad ee adduunka u maalka badan. Carlos waxa la weydiiyay sababtuu u soo taagan yahay una shaqeeyo mar kasta xilli uu haysto hanti ka badan isaga iyo 10 jiil oo ka dambaysa. waxa uu ku jawaabay Carlos waxaan u soo taaganahay oon u shaqeynayaa una noolahay sidaan ku gaari lahaa darajada koowaad
liiska dadka adduunka u lacagta badan iyo sidaan ku ilaashan lahaa booska hadda aan joogo oo ah ninka labaad ee adduunka u lacag badan. U fiirsa, Carlos kaliya waxa uu nool yahay laqab iyo magac, ha yeeshee baahi uu u qabo lacag oo jirtaahi ma laha. dhanka kale, reer galbeedka oo ah bulshada uu qoraaga ku dhisay buuggiisa ayaa waxa ay soo martay marxalado kala duwan. waxaa jiray xilli uu yaraa walwalka iyo stresska ka dhasha makaanada iyo darajo raadinta, xilligaas oo dadka fuqarada ah ay ahaayeen kuwa ku qanacsan faqrigooda, una arkayay in faqrigu yahay qadar ay mudan tahay in lagu qanco. sidoo kale, bulshada inteeda kale ayaa u muujin jirtay tacaaduf iyo ixtiraam, mana lagu dhaleecayn jirin faqrigooda, oo waxaa loo arkayay inay yihiin kuwa ka mas'uul ah quudinta bulshada, maadaama inta badan fuqarada ay ka shaqayn jireen beeraha iyo xoolaha. ha yeeshee markii nolosha reer galbeedka ay soo gashay falsafada ku dhisan maadiga, waxa isbedelay dhammaan aragtiyihii ay ka haystay nolosha. waxaa muuqatay ama ay aamineen in faqriga iyo taajirnimadu ay tahay laba shay oo muktasab ah. qofkii faqiir si ahaadaa xilligan oo ay fursadihii sinaadeenna waa qof mudan in la dhaleeceeyo, laguna tilmaamo inuu yahay doqon caajis badan. berigii hore reer galbeedka ma jirin fursado waxbarasho oo siman, oo dad gaara ayaa waxbaran jiray qoysaska hodanka ah. ha yeeshee maanta waxaa jira fursadihii waxbarasho oo siman iyo sidoo kale fursadaha shaqo oo dadku u siman yihiin. taasina waxay keensatay inuu bato walwalkii stresska, maadaama dadka yani imkaaniyad ahaan liita marka hore isku qancin jireen waxyaabo badan oo ay ka mid tahay maanan helin fursad waxbarasho, hantidii waxaa haysta dad gaar ah, waxyaabo la mid ah. sida maantaba Soomaalida dadka qaar ay isku qanciyaan in dalka uu ka jiro garbation, sidoo kale aysan helin fursad iyo cid caawisa. sidaas si lamid ah ay dadka hore isku qancin jireen, taasina waxay keensan jirtay inay helaan waxyaabo naftooda ugu tacsiyeeyaan kana qafiifisa walwalkii stresska. ha yeeshee maanta arrinta ah inay sinaatay fursadihii waxbarasho iyo shaqo waxay abuurtay ama keentay walwal iyo stress zaid ah, oo qofkii maanta ka hara tareenka taajirnimada ee ku nool galbeedka ma saamaxayo naftiisa, oo markastaahi waxa uu dareemay inuu yahay qof ka liita bulshada inteeda kale. ugu dambeyn, qoraaga buugga oo aad uga hadlay soona qaatay qisas badan iyo tusaalooyin ku aadan waxyaabaha keena walwalka iyo stresska, ayaa qeybaha dambe ee buugga waxa uu ku sharxi ama kaga hadli waxyaabo uu ku tilmaamay xulul. wareeg dheer oo falsafi ah kadib waxa uu tilmaamay in ay lama huraan tahay dadku inay u laabtaan diintooda si ay uga badbaadaan walwalka iyo stresska, iyo sidoo kale inay xasuustaan in adduunyadu ay tahay goob la goynayo oo kale, balse aysan ahayn goob ku haboon in lagu tartamo. aakhirana waa inay laabta ku hayaan haddii ay rabaan inuu ka yaraado walwalka iyo stresska. waa sida uu qoraag u dhigay. halka markaa marayso waxaa kuu muuqanaya in inaga ka bulsho muslim ahaan aan nahay kuwa aslan ahaan diintooda ay ka ilaalisay waxyaabaha keena walwalka iyo stresska, oo ay ka mid tahay xasadka iyo in aanan la jeclaan walaalkeen khayraadka Ilaahay siiyo. tusaale ahaan diinteenu waxay nafartay inaan nafta walaalkeen la jeclaano waxyaabaha aan nafteena la jecelnahay, sidoo kale inaan adduunyada ku tartamin oo aan adduunyadeena ka eegno kan naga hooseeya, halka aakhiradeena aan kaga dayanayno kan naga sarreeyo. sidoo kale waxay diinta nafartay in aan badino xuska alle, qalbigeena aan ku xirno markasta aakhiro, si aan u yareyno walwalka iyo stresska ka dhasha ka fakirka adduunyada. alaa bidikri illaahi tadma'innu alqulub. aniga waa walaalkiina balwaasugo idin leh sida ay nabadgelyo nabadiin nolol kulantii amaan Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.